بسم الله. الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن شاء الله تعالى waxaynu ka warrami doonaa maqaasid alcibaadaat addunyawiyya ama danta laga leeyahay cibaadaadka adduunyo ama fawaa'ida dunawiga ay leedahay. waxaynu naqanaa arkaanu islaamku ama cibaadaadku waa aslan macnahooda koowaada loogu talagalay inuu yahay atacabud, in ilaahay loogu dhowaado subxaanahu wa tacaala, ilaahay loogu mahad celiyo, dembi dhaafna lagaga dalbado. kaasi waa asalka cibaado kasta uu qofka muslimkii sameeyo. oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa cibaadaadkaba waxyaabaha laynoo saaray inay ka mid tahay inaynu ilaahay xusno una weynayno. aqim الصalaata lidikri walitukabiru allaha calaa maa hadaakum walacalakum tashkuruun ya ayuha aladiina aamanuu ida laqiitum ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa salaad hadday tahay waxaa laydin salaada u oogabaaba la yidhi ilaahay xuskii daraaddeed. ramadaantii markii laga hadlay ilahay wuxuu yihi walitukabiru llaha calaa maa hadaakum. jihaadka marka laga warramayo waxaa la yidhi wadkuru llaha kasiira lacalakum tuflixuun. idan aslu lcibaadaat waa in ilaahay loogu mahadnaqo. uu nabigu calayhi salaatu wassalaam markii dembigiisa la dhaafay adduunya aakhiraba cibaado badan buu haddana sii samaynayey ilaa yaacaguhu ay ka barareen oo ay caaisha ku tidhi ilaahay rasuulkiisii oo adiga dembigaagii hore iyo kii dambaba waa la dhaafay ma iska nasatid. wuxuu ugu jawaabay afalaa akunu cabdan shakuura, haddii ilaahay aniga dembigayga dhaafay miyaanan noqonaynin addoon mahadnaqa. marka waa inaynu ilaahay ku nidhaahno waad mahadsantay. waa marka koowaad cibaadaadku. waa marka labaadee waa طalab ilmakfira, waa inagoo dalbanayna in ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigeenna ku dhaafo oo aynu janno iyo nicmo ku helno, naarna kaga badbaadno. laakiin su-aasha aan rabo markaa inaynu isweydiina waxa weeyaan, cibaadadu markaa ma aakhirunba waxaan aad u tukanayso ee zako u bixinayso ee u soomayso ee u xajaysa ma faa'iido aakhiro la sugayuunba, mise adduunkan aynu ku dul nool lahay ayay waxtar ku yihiin?